xaalad degdeg ah magaalooyinkii oo albaabada la iskugu laabay wadooyinkii oo xidhan dhaawacyada oo sii kordhaya dhimashada oo sii badanaysa tujaar iyo faqiir midna u daahi maayo qof caan iyo qof madax ah ma kala saari doono Donald Trump oo leeyahay isbaar lana kulmay madaxweynaha Brazil wasiirka caafimaadka UK oo laga helay xanuunka corona wasiirka caafimaadka Iran oo isna u jiifa corona tababarihii hore ee Real Madrid ayaa u dhintay corona kuna dhintay da'da 70-ka WHO ku dhawaaqday xaalad degdeg ah marba dawladda ayuu ku boodiyay sida raha si uu dhulka uga galo dhaqaalaheeda iyo dadkeeda khatar ayuu ku yahay caalamka coronaha cusub xanuunada noocan oo kale nagama cusba tusaale ahaan hargabkii influenza oo ka dilaacay Yurub 1918 waxa uu galaaftay nolosha 50 milyan oo ruux xanuunada sababka ayaa xaaladda ugu xun fayruuska corona waa qolo ka mid ah fayruusta halista ah ee ku habsada naasleyda iyo shimbiraha fayruusyada noocan oo kale waxay haleelaan dadka ayna ka abaaraan nidaamka neefsashada uu raaciyo hargab culus taasoo dadka u diidaysa inay neefsadaan lo'da ayuu ku sababayo doofaarada inay seexan waayaan halka uu digaaga ka haleelo sanbabka sare ee neefta tuura ma jirto talaalo ilaa hadda la sheegay inay ka hortagi karaan fayruusyada noocan oo kale ah ee sanbabka haleela sidee ayuu u gudbaa fayruuska corona waxa uu gudbi karaa qof bini'aadam ah isagoo ka soo gudbaya hadaad cunto hilibka shimbiraha ama uu ku taabto qof fayruuska hore u qabay ama haddii uu kugu hundhiso qof ku agdhow ama uu kugu neefsadaba calaamadaha coronavirus waa maxay inta badan coronavirus waxa uu ka bilowmaa hargab aan kala go' lahayn oo ay soo raacdo xumad aad u sareysa oo zaa'id ah iyo xanuun inta badan waxa ay dadku u nugul yihiin xilliga qaboobaha fayruuska ayaa abaaraya sanbabada si toos ah waxuuna duloolinayaa qasabadaha sanbabka ka soo qaada hawada si aan u fahanno qoyska fayruusyadan aan dib ugu laabano taariikhda fayruusyada sanadkii 2002 bishii 12 ayaa la helay xaalad u eg tan maanta ee corona waxa loo haystay hargab caadi ah laakiin arrinta ayaa hal mar isrogtay kadib markii xanuun halis ah uu noqday oo naxariis lahayn laguna magacaabay SARS Severe Acute Respiratory Syndrome oo ah xaaladda khatarta ah ee neefsashada SARS waxa uu ka dilaacay waqooyiga Shiinaha meel u dhow Hong Kong kumuna nagaanin la xadhkaha goostay uu caalamka oo dhan uu gaaray 3 isbuuc gudihii fayruuskaas waxa uu haleelay 8,000 qof halka uu dilay 860 qof oo kale anusoo gudubna 2012 magaalada Jidda ee Sacuudiga isla xilligaas waxa uu fashilay Maxamed Zakariya oo ahaa dhakhtar masaari ah fayruus degdeg ah oo eekay 2002 ee SARS laakiin fayruuska cusub ayaa lagu magacaabay MERS Middle East Respiratory Syndrome oo xaaladda neefsashada degdega ah ee bariga dhexe ka dilaacday inkastoo uu gudbay si degdeg ah laakiin waxa uu haleelay 2500 qof halka ay u dhinteen 800 oo qof MERS iyo SARS waxay u eegayeen fayruuska corona ee maanta jira iyagoo iska shabaha hal meel oo ah meesha ay ka yimaadeen saddexdan fayruus waxa laga qaaday meelo lagu iibiyo hilibka xayawaanada sida xaaladda maanta taagan ee corona waxaan ognahay inay ka bilowmatay suuq lagu iibiyo kalluunka oo ku yaala magaalada Wuhan ee Shiinaha waxay sheegayaan warbixinadu in corona ay ka timi asalkeedii hore shimbirta fiidmeerta fayruusyada waxa halis ah oo aad u yar waxayna soo galayaan unugyada jidhka iyagoo soo daroolinaya kuna tarmaya iyagoo badan marka ay bataanna waxay burburinayaan unugyada jidhka aad u saameynaya xanuunka corona maxadka daraasaadka fayruusyada ee Shiinaha ku yaala waxa uu soo saaray warbixin ku saabsan cidda halista ugu jirta inay u dhintaan corona dadka gaboobay ee kor u dhaafay 70 jirka ayaa ah kuwa ugu khatarta badan isagoo difaaca jidhkoodu uu daciif yahay kaalinta labaad waxa ku jira dadka qaba xanuunada wadnaha iyo sanbabada sida xiiqda halka kaalinta saddexaad ay ku jiraan dadka qaba dhiigkarka ama macaanka sonkorta ah ayaguna ku jiraan halista safka saddexaad kiisaska uu marayo maanta corona China oo ahayd meeshuu ka dilaacay waxa qaaday 81,000 oo qof halka ay 3,200 qof u dhinteen Talyaaniga ayaa ah waddanka labaad waxa qaaday 13,000 oo qof halka ay 4,800 oo qof u dhinteen Spain waxa qaaday 28,500 oo qof halka ay u dhinteen 1,800 oo qof Mareykanka waxa qaaday 24,000 oo qof halka ay u dhinteen 350 qof Iran waxa qaaday 22,500 oo qof halka ay u dhinteen 1,700 oo qof magaalooyinka kale ee la sheegi karin waxa kamid ah Sweden, Finland, Kenya, Ethiopia,
iyo waddanka la dhaho South Korea, Japan